إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسه وحمقالة برعي حرنتو قبل كتقدر أسقر اللوغو سميي حلبان محمد أحمد حسن دينقول oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana aaskan qaran ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco culimada diin iyo dadweyne tiro badan kuwaas oo dhamaantood tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marxuum Maxamed Axmed Maxamuud Xasan uu jannadii firdawsa ka waraabiyo waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa qoyskii uu ka geeriyooday iyo qaraabadiisii kullu nafsin daaqiqatul maut marxuumkan maanta aynu aaskiisa joogno waa laga hadlay nin culus oo roog cadaaya oo udub dhaxaad u ahaa golaha deegaanka Burco ayuu ahaa ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xildhibaanku wuxuu ahaa xubnaha koobaad ee gobolkan Togdheer nala haya haday nabadgelyo tahay iyo haday qaaraan tahay gobolka nagala shaqeeyay wuxuu ahaa xildhibaanka u daada weyn golaha deegaanka ee degmada Burco wuxuu ahaa xildhibaanka qura ee marka ay isqabtaan ama xildhibaanadu isu yimaadaan marka ay isu noqdaan isu jiidaba qof walba saacada ilaahay u qadaray iyo meesha uu qadariyay sida uu qadaray u dhimanay waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayna halkii iyo asxaabtii tacsi murugale ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana ha u naxariisto waxaan gaar ugu sii tacsiyadeynaa reerkii caruurtii iyo xaaskii uu ka baxay ilaahay su'aasha ha u fududeeyo ilaahay qabriga ha waasiciyo marxuumka waxaana marxaati u furayn adoonkaasi adoon saalixa wuxuu ahaa koob iyo labaatan xildhibaan ninka noogu naxariista badan waxaan halkan tacsi ugu diranaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum Maxamed Axmed Maxamuud Diigool ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistii janno ha siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baranaynaa marxuumkan Maxamed Axmed halkan ku geeriyooday inuu naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo qoyskii uu ka dhintayna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo runtii anagu waxaan isnaqaanay muddo 40 sanadood ku dhow ilaahay hortii waxaan la tagaynaa oo maalinta qiyaamaha aanu marxaati ka nahay inuu ahaa nin odaya nin wanaagsan nin nabadda ka shaqeeya Allah u naxariistay marxuumka ayaa ifka kaga tagay 2 xaas iyo 10 carruur Ibrahim Faarax Macaan iyo Honkable TV Burco.